السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maal Maxamuud casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad park waa xirxirasho yani kartoon ama dhar ama alaab inaad xirxiraysid deedna la safrin rabo taa waxaa la yiraahdaa park. For example qof hadduu ku dhaho hey pack your clothes we are going dharkaad xirxir waan baxaynaa she will pack her clothes dharkeeda xirxiran doonta they packed the boxes carefully kartoomadii si taxadar leh bay u xirxireen. Yes. Ereyga labaad pact waxaa la yiraahdaa heshiis agreement ayay isku macno yihiin. For example, these two companies signed a pact waxay saxiixdeen heshiis. Yes. Ereyga saddexaad paradigm waxaa la yiraahdaa tusaale example ama the standard example tusaalaha saxda ah ee waxaan loogu talagalay. This is a paradigm of excellence tani waxay tusaale cad ka tahay yani excellence. Yes, aad iyo aad. We need a new paradigm for education tusaale fiican oo cusub baynu ugu baahanahay qaybta waxbarashada. Marka paradigm waxaa la yiraahdaa the typical, the standard example of something. aad iyo aad. Ereyga afraad paradox waxaa la yiraahdaa statement u muuqdo inuu waxaan kasoo horjoodo laakiin haddana laga yaabo inuu sax yahay. It's a statement that seems to be contradicting this thing wuxuu u muuqdaa inuu waxa kale ka soo horjeedo contradiction buu u muuqdaa but maybe it's true haddana waxaa laga yaabaa inuu run yahay. Okay, tusaale haddaynu gelino it is a paradox that the more we know the more we realize how little we know. Okay, that's a very complicated statement. Marka waxaan yani waa statement u muuqdo inuu waxa kale contradiction ku yahay uu ka soo horjeedo haddana waxaa laga yaabaa inuu run yahay. Yes, it also may be true. ereyga shanaad paramount waa muhiim jiddan. Yes, paramount. Yes. ereyga lixaad for example safety is a paramount in this job yani badbaadada ama safety waxay u tahay muhiim jiddan shaqadan muhiim markay wax aad muhiim yihiin la yiraahdaa paramount. ereyga lixaad passage waxaa la yiraahdaa yani wadada qofku uu marayo inuu qofku wadada maro and then ku kale uu maro. Yes, a journey from one place to another. It's called a passage. Passage waxaa kaloo la yiraahdaa yani qoraal. Yani she wrote for me a long passage. Qoraal aad u tira dheer bay isoo dirtay. Yes, qoraalka dheer waxaa la yiraahdaa passage. For example, read the passage on page 10. Qoraalka ku qoran boga 10aad akhri. Ereyga toddobaad pat waxaa la yiraahdaa qofka markii aad dhabarka u salaaxdid yani ama madaxa u salaaxdid dhabarka ama yani caloosha yani qofkina gacantaada si naxariis leh ugu salaxda la yiraahdaa pat. For example, he gave the dog a pat on the head madaxu ka salax. Yes. Batch waxaa la yiraahdaa yani a small piece used to repair wax yar oo loogu talagalay in wax lagu repair gareeyo. He sewed a patch on her jeans yani wax yar buu ku tolay mara yar yani waa mara yar ama jab yar oo loogu talagalay in wax lagu dayactiro. Yes, patch waxaa kaloo la yiraahdaa dhul yar oo caadi ah waxaa la yiraahdaa patch. For example, a green patch of grass remain dhul yar oo caws baa soo haray. Pathetic waa wax aad u xun. Yes, pathetic somebody yani wax in lagu candhuufto fayd wax la nacayd wax la dhibsado ayd pathetic. Yes, for example, his effort was pathetic ama the movie's ending was pathetic. Filimkan dhamaadkiisa wuxuu ahaa yani wax aad useless ah something that is very bad ama yani wax in lagu candhuufto wax markaa jeceshana waa admirable wax markaa necab tahay waxaa la yiraahdaa pathetic. Peculiar, the last word peculiar waxaa waayo yani wax markay caadi yihiin waxaa la yiraahdaa ordinary markaanay caadi ahayn waxaa la yiraahdaa peculiar ama waxaa la yiraahdaa strange waxaanan caadi ahayn. For example, she has a peculiar way of talking waxay leedahay qaab aan caadi ahayn inay u hadasho yani qaab aan caadi ahayn bay u hadashaa. Ashkintaas ayuu ka egahay. Thank you for listening. God bless you and have a good day. Bye bye.